kusoo dhawaada video saddex tobnaad oo aan ka diyaarinay barbarooniga. Videoskii hore waxaan uga hadalnay cudurrada, qaabka loo maamulo, sida loo koriyo. Hadda waa natiijadii iyo gurashada, qaabka loo guro, waxyaabaha la isticmaalo. waxaa jira kaartooyin yar yar oo haddii aad isticmaashid wax soo saarkaagii natiijadiisa aysan kaa halaabayn. laakiin haddii aadan u diyaar garoobin oodan xilligii saxda ah aadan guran, qaabkii saxda ahna aadan u gurin, inay wax soo saarkaagii ay dib u dhigto. marka video waxaan uga hadlaynaa harvestingka ama gurashadii dalagii barbarooniga markii uu soo dhamaaday xilligiisa. fadlan ka faa'iideyso. السلام عليكم كل سنة فيديو دي ديار السفام صوماليا ونقول ترجلنا إنك فايدستان ولا لها صوماليات مقعي وعلي باشي. فضلا هدي أكو عصب تاع كنالك سبسكرايب ده بيلكنا تابو سي سقودا في الفيديو كستان سوسا منه ونقول بي أولو ذاك ولا لها كلا صوماليات. سيدا شاكني فيديو قام وحنوه هاللينا قرشة بربرونيغا يسيدي لو معمول لها قرشة داس. صدح دان قيبود أيان ربنا وحيابا عن كسو قادان إن فيديو كميد marka bisaylka barbarooniga waa maxay waa midabkee maxay yeelay ileen waa ognahay qudaaraha markii la rabo in la soo gurto qaabab kala duwan ay u bislaadaan xilli ay ku haboon yihiin in la soo gurto oo diyaar yihiin ayaa jirta. marka qaybtan koowaad saas ayaan uga hadlaynaa. dabcan barbarooniga oo kale waa dalagyada midabka lagu soo gurto markii ay bislaadeen lagu ogaado, laakiin markay cagaarka yihiin waa ciiriin ee bisayl ma ahan. laakiin saas oo tahay sidaas ayaa lagu soo gurtaa oo lagu cunaa adduunyada dhan. Soomaaliyana waa naqaanaa midabka cagaarka ah markii uu yahay barbarooniga waa markaas marka la soo gurtaa, laakiin waxaa la rabaa markaas aad soo guraysid inuu yahay cagaar gaaray xilligii gurashada oo diyaar ah. waxaa la rabaa geedkii inuu yahay geed adag oo midabkiisu uu dhalaal leeyahay oo stemka ama xididka qayb ka midana ay ku dhagan tahay oo la socdo lala soo jaro. gadaal ayaan ka sheegi doonaa sababta. laakiin adduunyada kale sanadii la soo dhaafay waxaa suuq fiican yeeshay barbarooniga bislaaday oo midabyada kala leh sida jaalaha iyo guduudka iyo leh. aad ayuu muhiim u yahay suuqyada kale adduunyada aad ayaa looga cunaa. laakiin barbaroonigu qudaaraha kale sida yaanyada iyo mooska iyo waa ka duwan yahay oo asaga banaanka kuma bislaado, oo isagoo cagaar ah haddii aad soo jirtid oo aad rabtid inuu ama jaalle ama guduud uu noqdo ma kuu noqonayo ilaa geedka uu ku dhagan yahay maahane. marka qudaaraha kale saas ayuu asoo ugu duwan yahay. marka kalarka aad rabtid inaad sugtid ma ahan oo geedka ku sugtid asoo ku yaalee inta suuqa geysid ma isbedelayo. laakiin markii aad geedka u sugtid oo aad rabtid inuu midab kuu yeeshana dhibaatooyinkeeda ayay leedahay. oo yaanyadoo kale iyo mooskoo kale waa taqaaniin ayada dhibaato ma lahan ayagoo cagaar haddaa soo jirtid cagaarka weliba heerkii loogu talagalay ah hadday gaaraan oo aad soo gurtid inay banaanka ay ku diyaar garoobaan dhib ma lahan ayaga. laakiin si kastaba ahaataba haddii aad rabtid inaad ka dhigtid midabyada kale oo bislaaday oo aad rabtid suuqa inaad geysid, suuq inuu leeyahay magaalada aad joogto oo waddanka aad ka joogto inuu suuq u leeyahay oo dadku ay yaqaaniin oo ay rabaan, qasab waa ku khasban tahay inaad iska hubisid maadaama markasta uu nafaqo badan yahay. markii uu bislaado midab qurxoonna uu leeyahay saaladyada iyo cuntooyin kale marka lagu daray uu qurxinayo. haddii dadku ay jecel yihiin waa aad ayay muhiim u tahay markaasuuna nafaqo badan yahay. laakiin adigana sida aan sheegnay dhibaatooyin ayaa ku qabsan kara oo ah maadaama geedkii uu wax badan korayo oo wax badan uu baxayo waxaa kugu dhici karta markaas cudurradii iyo cayayaanaadkii inay kusoo weeraraan oo ay dhibaato gaarsiiyaan. marka waqtigaas aad ku daraysid dhibaato ayuu kuu keeni karaa. laakiin haddii aad lacag badan ku helaysid oo aad rabtid maaragtay qiimo fiican aad ku helaysid because waddamadan oo kale markii la joogo markii uu jaalaha markii uu guduudka ama yelowga uu yahay qiimo badan ayay ku helaan oo ka badan markii uu cagaarka yahay ayaa lagu helaa. marka haddaad qiimo badan ku helaysid markaas waa samay kartaa. laakiin qiimo badan haddii aadan ku helayn ma samay kartid. dhibaatooyinka marka kale oo u imaan kara beeraleyda waxaa ka mid ah haddii aad mirta u dayso geedka si ay ugu dul bislaato waxaa dhacaysa ubixii ay saari lahayd inay yaraato. marka intii aad geedka u dayso waxaa yaraanaysa mirihii tirada badnaa uu dhalayo. marka haddii aad qiimo badan ku helayn faa'iido kuguma jirto, waa inaa markaa iska jartaa oo cagaarka aad ku geysaa magaalada. kaasaana kuley dadka inta badan ay jecel yihiin. marka waxaa la dhihi karaa laba sababood kaliya ayaa ugu ogolaan kartaa marka inaad barbaroonigaaga aad midabkiisa aad bedesho
oo u ogolaato inuu midabku isbedelo oo ama uu noqdo guduud ama jaalle ileen midba geedaha kala duwan midba kalar uu noqdaa inaad u ogolaatid. waxaa ka mid a inaad qiimo fara badan ku helaysid iyo marmarka qaar haddii aad ogta inaad suuq u helaysid isagoo kalarka kala ah inaad u daysid geedka. kaba soo qaadba barbaroonigii suuqa oo magaalada yaalay haddaa aragto oo raqiis ah oo qiimo fara badan aan joogin, geedkaa u daysanaysaa xilligaas oo qiimaha uu raqiiska ka yahay magaalada. geedka ha ku yaallo cudurradii iyo cayaanaadkii sidaa ayaa isaga waardiyeynaysaa. hadhow asagoo midab noqday ayaad suuqii geynaysaa, markaas faa'iidadaas ayaa ka helaysaa. marka labada sababood inaad u daysato ma ahane si kale looma sameeyo in geedka loo daayo, ee cagaarkiisa ayaa lagu iibiyaa. midda kale oon ka hadlaynaa marka waa qaabka soo goynta iyo qalabka aad u baahan tahay. kolley qalab fara badan iyo waxyaabo fara badan oo la isticmaalo iyo machinery la isticmaalo oo lagu jaro xataa meelaha qaar way jiraan, laakiin taas hadda uguma hadlayno halkan. dabcan sida aan ognahayna inta badan barbarooniga marka lasoo jarayo gacanta ayaa lagu soo jaraa. marka muhiim waxaa qofku marka caagad yar ama weel inuu haysto, caagadaa weliba fiican inuu haysto oo barbaroonigiisa ku guro, kabacdi hadhow meel weyn oo wixii dhan la isugu keenayo la isugu shubo oo lagu diyaariyo. kolley waxay ku xiran tahay qofka waxa uu soo saaraya tiradeeda iyo qaabka ay tahay iyo qaabka uu gaariga u saarayo ay ku xiran tahay taas. laakiin waxaa muhiim ah si waqti kuugu badbaado si waqti badan kaaga lumin marka aad guraysid in agtaada ay taalo caagadii aad wixii dhan ku diyaari lahayd, kabacdina aad meesha weyn aad sii geysaa. laakiin kolley waa naqaanaa Soomaaliya iyo wadamada Afrikaanka badanaa qalabkaas iyo packagingka tirada badan iyo guryo lagu diyaariyo qudaarihii oo lagu kala sooco iyo waa adag tahay, aad looma sameeyo. jawaano kale ayaa lagu guraa, kabacdi kuwaas ayaa suuqa lagu geeyaa oo aryaduna kasoo yargeli karto. noocyadaas oo kale dabcan ayaad isticmaali kartaa hadba wixii ileen moogtahay. muhiim ma ahan wadamada kale wixii laga sameeyay haddii qiimo ahaan aysan iskeenayn, business ahaan aysan iskeenayn, inaan annaga koobiyeyno qasab ma ahan. wixii hadba suuqa ku soconaya oo adiga isku dayi kartid oo nadaafadiisii iyo wixii aad ku ilaalin kartid, kabacdi waxaa goofiyo oo suuqa ku geertid, muhiimadda taas ayaa saaraysaa kulley. laakiin waxaa muhiim ah inaad ka ilaalisid maadaama ay kulley dabcan waa jilicsan yihiin, waa aragtay faleeshkooda, inaad ka ilaalisid dhaawac inuu aad gaarsiisid markii aad jaraysid barbarooniga. haddii uu dhaawac kaa gaaro waa inaad tuurtaa oodan ku darsan adeegaagii kale, maxaa yeelay waxay keenayaan cudur ayay u keenayaan oo keeg fiyoobaa waxaa halaynaya midkii cudurka lahaa oo ku jiray. halkii xaba haddaad 10kii xaba ku dhex darto 10kiiba wuu halaynaya. marka waa muhiim inaad cudurrada wixii qaba iyo wixii jiran oo dhan in aad ka saartid, aad ayay muhiim u tahay. geedka xataa markii uu baxayo haddii aad aragtid mir halaysan oo cudur qabta ka jar oo dhaafi si uusan geedkii iyo mirihii kaleba uusan kaaga halayn. marka sida aan niri waxaa muhiim ah in qofku maamul fiican uu saaro. maamulkaas yarka oo kooban oo aad saarto waxaa laga yaabaa in uu faa'iido weyn uu kuu keeno, oo hal mir oo halaysan oo aad iska tuurto oo dadkii shaqaalaha haddii kula shaqaynaya u sheegto wixii halaysan iga tuura inaad tiraahdo oo wixii nadiifa kaliya aad qaadatid, waxay kuu gaaraysaa faa'iido weyn ayay kuu keenaysaa. dadkii aad ka iibinaysana faa'iido weyn ayay u keenaysaa. marka intaasaa dadaal kusoo bixinaysay, maalinkii aad guraysay inaad nadaafadda ku dadaasho oo wixii halaysan aad iska saarto, waxba kaama doonayso. midda kale oo la rabo in la sameeyo waxa weeye maadaama barbaroonigoo kale uu leeyahay laamo aad u jilicsan oo si sahla u jabi kara, inaad ka taxadirtid oo markii shaqaalaha ama adiga aad samaynaysid ay muhiim tahay inaadan xididkii aadan dhaawac gaarsiin. haddaad xididkii ileen moogta barbarooniga marka aad kasoo jaraysid ma ahan kaliya hal mar intaad jarto inaad ka dhammaatay. dabcan adduunyada saas lagama isticmaalo, intaas waqti dheer ayaa la gurtaa. marka maadaama aad rabtid inaad waqti dheer aad guratid waa inaad ilaalisaa inuusan geedkii uusan wax gaarin, mirtii aad guranaysana dabcan waa in ayadana ilaalisaa inaysan waxba gaarin. qaabka marka oo saas loo gaaro oo weliba cudur la yiraahdo bacterial soft rot cudur la yiraahdo ayaa ku dhaca. cudurkaas marka waxyaabaha looga hortagi karo waxaa ka mid ah in aad stemka waxa la yiraahdo oo sawirka midigta kaaga muuqdo oo kale inaad u ogolaatid inuu soo raaco oo aadan wada jarin. haddii aad wada jarto waxa u sahlanaanaysa bacterial soft rot inuu ku dhaco mirihii. waa cudur ka mid ah cudurrada ku dhaca miraha barbarooniga oo aan ka sheekayn. dabcan waa anagii niri in cudurro badan ay jiraan, laakiin qaar ka mid ah aan soo qaadanay. laakiin cudurkan waa cudur ku dhaca haddii aadan u dayn stemka. caawimaad badan ayaa ka helaysaa marka stemka u daysid. marka waa muhiim kaas inaad u daysid. marka stemka qaabkaas marka inaad wax u jirtid kaliya
oo sida hadda videoga aad ka aragtid oo loo jarayo mirtii waqti dheerna way kugu qaadanaysaa inaad u samaysid. Marka maadaama waqti dheer ay kugu qaadanayso oo dhibaato ay kugu keenayso oo qaabkaas aan isa fiicnayn inaan loo jarin, waxaa kaaga sahlan adoo isticmaala midi nadiif ah ama scissors oo maqas habaysan oo fiican oo loogu talagalay waxyaabahan in lagu jaro adoo isticmaala ayaa ka fiican intii aad maanta oo dhan gacanta ku wareeji lahayd oo geedkiina aad dhaawici lahayd, mirtiina aad u sahli lahayd inay cudurro ku dhacaan. Marka midi nadiif ah ama maqas loogu talagalay markii aad isticmaashid, shaqada way kuu sahlaysaa, shaqadii si sahal ayay kaaga dhigaysaa, geedkii iyo mirtiina ayadoo caafimaadkeeda ku dadaalaysa. Dabcan waa fiicnaa lahayd intaad geed markaa ka baxdid geed kale intaadan aadin inaad nadiifiso, way fiicnaa lahayd haddii awoodi taas, maxaa yeelay si aadan cudurka aadan geed uga gudbin oo geedkii kale oo fiicnaa aadan u gaarsiin. Marka sida aan sheegnay, mir kasta oo halaysan ha ku darin barbarooniga aad guranaysid ee taa iska jar, geedkana ka jar, kuwii kalena ha ku darin, maxaa yeelay iyada wey meeshii oo cudurkii uu ka faafiyey oo kuwii caafimaadka qabay uu gaarayay. Sidoo kale dabcan haddii xataa aad rabtid inaad midabka bedeshid oo ama kuu gududato ama kuu cagaarato, lama rabo inaad u ogolaatid inay waqti dheer ay geedkii isaga dhegan tahay iyadoo bisaylkii gaartay. Taas marka haddii aad u ogolaatid inay cudur ku dhaco oo jirato ayaa imaanaysa. Marka waqtiga ku habboon oo ay bisaylka tahay ka jar geedka oo dabcan suuqa gee. Midda ugu dambaysa oon ka hadlaynaa marka waa maamulka soo goynta kadib. Markii aad soo goyso barbarooniga oo geedkii kasoo jarto kabacdi, maxaa samayn kartaa? Waxyaabo badan oo haddii aad samaysid kaa caawi kara ayaa jira oo dabcan ay adag tahay in waddankeena laga qabto, sida in la qaboojiyo kale oo qaboojiye la geliyo ilaa suuq fiican loo heliyo ama suuqii la geynayo suuqiina lagu geeyey qaboojiye. Laakiin taas waa ognahay waddankii waa ku yartahay. Laakiin waxyaabo kale oo waxaa jira aad samayn kartid oo aad kontrooli kartid oo aad awoodid oon kaaga baahnayn waxaas. Marka waxyaabaha aad samayn kartid waxaa ka mid ah inaad subaxii hore alasayda hore inaad soo jaridda bilowdo oo aad barbarooniga soo jarto. Markii mirti ay qabowdahay alasaydaas hore inaad bilowdo shaqada ayaa fiican, ama greenhouse ka guro ama banaanka ka guro. Waxaa fiican marka alasaydaas in shaqada la bilaabo. dabcan hataa waa naqaanaa waddankeena waa isku kulul yahay, alasaydaas hore ayaaba kuu sahlanba shaqada in la qabto. Markii aad soo gurto kadib oo aad soo goyso, ayadan waxaa muhiim ah meel hoos ah oo aaryo qabow leh inaad dhigto, aad ayay u muhiimsan tahay. Because ujeedadaada aad u samaynayso taas waxaa weeye in geedkii ama mirtii in aysan kulayl badan uusan soo gelin oo kulaylka badan laga ilaaliyo. Maxaa yeelay geedkii waa kasoo goysay, marka waa muhiim inaad taa samaysaa. Sidoo kale maadaama aad hoos dhigta, dabcan micnaheedu waxa weeye qorraxdii aad ka ilaalisa, qorraxdii tooska ahayd ayaa ka ilaalisa oo qorraxda tooska inaad ku haysid. Xitaa beerta markaa kasoo guraysid banaanka inta baakadkaas yarka ugu gur, waxaan uga hadlaynaa waxa weeye hadhow markaa baakad ku gurtid, kii weynaa oo lagu shubayay wixii oo dhan meel hoos ayuu yaalaa, ama geed weyn hoostiisa ha ahaato ama guri ha ahaato, waa inaad hooska aad geysaa oo qorraxda tooska ah aad ka ilaalisaa. Maxaa yeelay mirtu markii ay ku dheganayd geedka, iyadaa wixii ka baxa biyo iyadaa bedelaysa. Laakiin haddaad geedka kasoo goyso, waa cunug yaroo xuduntii hooyadiisa laga jaray, marka ma heliyo wax soo geliyo dambe ma jiraan. Wixii un ku jiray, biyihii ku jira unbaa ka baxaya markaas wixii ka dambeeya. Marka sidaas darteed waa inaad geysaa meel yaraynaysa inay biyihii ka baxaan oo qorraxda tooska aad ka ilaalisaa. Xitaa haddii aad awoodid suuqa markaad geynaysid oo suuqa usii wadid, intaad suuqa aadin ka hor, haddii aad geedaha baabuurta xataa oo qudaartu saaran tahay barbarooniga, haddii aad geedo hoostood dhigi kartid oo meel hoos aad dhigi kartid, aad ayay u fiican tahay inaad samaysid taas xataa. Dabcan sida aad video ka aragtid, wadamada qaar storage iyo meelo qabow ay u sameeyaan oo kabacdi barbarooniyaasha inta boqosyada la geliyo oo lagu habeeyo suuqa la geeyo. Insha Allah maalin ayaan gaari doonaa, laakiin qaababkaas ayaa loo sameeyaa meelahaas iyadoo la kontroolayo marka temperature-kii oo ku habaysnaa. laakiin insha Allah waa gaaraynaa haddii Ilaahay yiraahdo. Taas marka waxay kuu keenaysaa waqti dheer in aad kaydin kartid oo waqti fiican aad hayn kartid. Laakiin hadda annaga xaaladdan haysata waxa weeye markaas suuqa la keeno, haddii aan laga faa'iideysan, hore ayuu ka halaabaya. oo ujeeda hadda dhibaatada barbaroonigeena haysata oo suuqa bakaarahoo kale meeshan weeye, waxaa arkaysaa in ay hore ka halowday barbaroonigii, maadaama dadkii qorraxdii ay dhigayaan, qorraxdaa lagu hayaa, oo xataa haddii meel hoosa oo qabow lagu hayo waqti wuu sii dheeraanaya. Marka qorraxdaas la iskaga hayaa, kabacdi si dhaqso ah oo horay ah ayay ka halaabayaan. Marka waa dadaal badan ayuu kusoo sameeyey ninkii beeraleyda ah oo soo saaray barbaroonigaas, suuqa ayuu keenay,
intooda badanna waxa khasaaraya waa beeraleyda ee ninka soo iibsada maahan. Ninkii beeraleyda waxaa laleeyahay keen barbaroonigaaga ama qudaartaada keen, inta badan saas ayaa la sameeyaa. Annagaa suuqa kuu geynayna, kuu iibinayna, hadhow haddii uu soco waayo uu khasaaro, isaga ayuu khasaara. Ani kulli dabcan experience-ga aan maqlay saas ayay ahayd. Laakiin waxaa laga yaabaa qofka asaga haddii uu leeyahay uu soo iibsado ganacsadaha, inuu dadaalkiisa uu kaas ka badi lahaa ayaa laga yaabaa, oo meel hoose uu dhigi lahaa, oo si habaysan uu kala sooci lahaa midda halaysan iyo midda aan halaysnayn si cudurrada looga hortago. Marka videoskii aan barbarooniga uga hadlaynay intaan ayaan hadda ku dhammaynaynaa haddii ilaahay yiraahdo. Qaybo kale iyo waxyaabo kale iyo xilliyada la abuuro oo barbarooniga bilow ilaa dhammaad summary asagoo ah haddii aan mar chance helo insha Allah ayaan ka samayn doonaa. Laakiin hadda intaan ayaan ku ekeynaynaa. Waxaan rajeynayaa inay ahayd maaragtay faa'iido badan 13kaas iyo 14kaas video oon ka samaynay barbarooniga inay ka faa'iidaysteen ayaan filayaa insha Allah. Kulli waxaan rajeynayaa inaan dala kale aan bilaabo sida basasha oo kale. Haddii marka aad kuwa kale aad jeclaan lahaydeen inaan bilaabo, ila soo socodsiiya. waxaan rajeynayaa marka inaad ka faa'iidaysateen. Intaan video kale ku kulmi doono. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo beerasho wacan.